بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta waad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga Universal anigu Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa barnaamijka idin soo jeedinaya qodobada aynu ku falanqeyn doonana waxa ka mid noqon doona boqolka maalmood ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaad wada ogtihiin dhamaantiinba madaxweynaha Soomaaliya ayaa muddada uu xilka hayo boqol jirsaday falanqeyn ku saabsan muddadaasi boqolka cishaha ayaad barnaamijka ku daawan doontaan qodobadeena kalena waxaa ka mid noqon doona agaasimaha shaqaalaha bariga iyo bartamaha Afrika oo soo gaaray maanta Muqdisho maxay tahay sababta Muqdisho u yimid waxaan idin hayaa waraysi qaybaha dambana waxaad ku daawan doontaan taliska ciidamada militariga oo gacanta ku soo dhigay ciidamo isbaarooyin ay u yaaleen deegaano ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal muddo boqol cisho ayaa u buuxsantay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo markii la doortay 8 bishii Febraayo ee sanadkan horaantiisii waxaana aad loo qiimeyn doonaa muddadaasi boqolka cishaha waxqabadkiisa iyadoo la eegi doono dhinacyada kala duwan madaxweynaha ayaa hadal u dhawaan ka jeediyay munaasabadii 15 May waxa uu ku sheegay in muddada ay jirto dawladdiisa ay waxyaabo badan qabteen wuxuuna soo hadal qaaday arinta bixinta mushaaraadka iyo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawladaha caalamka haddaba waxaa telefoonka magaalada Nairobi si toos ugu jira Professor Ibrahim Faarax Bursaliid Bursaliid haddii maqli karto qiimeyntaada boqolka maalmood ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Hello Bursaliid Hello waa ku laaban doonaa hadduu alle idmo telefoonka Professor Ibrahim Bursaliid madaxweynaha Soomaaliya ayaa muddo 8 jeer safar uga baxay wadanka waxa uu aaday wadamada dibadda safarkii labaad ee uu ku tagayo Sacuudiga ayuuna hadda halkaasi ugu maqan yahay iyadoona uu sidoo kale safar ku tagay wadamada Kenya Ethiopia Imaaraadka Turkiga Ingiriiska iyo Oman halkaasi oo intooda badan shirar kaga qayb galay wadamada qaarna booqasho rasmi ah ayuu ku tagay waxaana ay ahaayeen safaradiisa kuwa isxigay oo waqtiyo kooban ay u dhaxeeyeen dib waxaan ugu laabanayaa telefoonka magaalada Nairobi iyo Bursaliid Professor Ibrahim haddii aad imaqli karto maxay tahay qiimeyntaada adiga boqolka maalmood ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo بسم الله أنا أقوم هالسنتهاي فرصة إيسيسن تلفزيونك يونيفرسال عندنا نسكت دينا كجواب سؤال هذا حد هالبيج هذا عبر في عنه ولا قادن كرو وحلو عبروا عن قانون جود عن سياسة الصومالي ذا مجرو وليس كلو جيرانه وحويان بقول ما المساعدة وحلو الشيء وبدن لما جرامي مركز في حكومة هرو فدرالك وحلسين جري إلى لحبلوت إلى السنة بلين لقيمة وحي قبتين سيكا استبسة وقالك عشاء دماتي وحي المدينة يسوقوا جرتي قولوا لطابان كرو بدن كود لغا كياني اسبدلو دورة او قدها دالك لغو سميي iyo in badan oo ayaga kamida xiriirka dibadda dhinaca kalena hadee fulay xantiisa mooyo quruf badanna waa jirtay waxaad ogeedeen xildhibaano badan iyo senataro ay ku shireen Nairobi arrimaha taagan ay sheeganayaan shacabkana waxaad moodaa sidii loogu hanweynaa dawladda aan la hadlaynin laakiin waxoogaa guux u jiro waayahay muddadaasi boqolka cishaha madaxweynuhu ilaa 8 safar ayuu galay markaad eegto safaradaasi ma baahida dibadda ka jirta ayaa ka badan tan gudaha mise loo baahnaa safaradaasi in madaxweynuhu uu sameeyo horta sida uu sheegay markii uu baarlamaanka la hadlayay labada aqalba aan dhexe iyo khudbadiisii caleemasaarka waxaad moodaa inuu ballan qaaday iyo xataa waxoogaa ka hor markii la tartamayay inuu madaxweynihii ka horreeyay ku eedeynayay safarada tirada badan
iyo wadooyinka la xiro markasta uu meel marayo waxaad moodaa inuu si un baac u dheeryahay safarada marka la fiiriyo waxaan hubaa inta yar aan aqaano qof ahaan iyo shakhsiyad ahaan madaxweynaha cusub madaxweyne farmaajo ah in la taliyaashiisu ay khariban yihiin asaga uu nin fiican oo niyad fiican yahay meeshii la rabay in lagula taliyo inuu dalka juhdi badan geliyana aad moodid in dibadda xoogga la saarayo laakiin dhinaca kale samaanta marka laga fiiriyo cabdullaahi waxaa la dhihi karaa waxaad moodaa inuu rabo inuu kaga faa'iidaysto 6 bilood ugu horeysa ama sanadka ugu horeeya inuu xaqiijiyo in siyaasadiisa arrimaha dibadda ay saldhigato marka la fiiriyo heerka kaalmo ee beesha caalamka looga baahan yahay dib u dhiska Soomaaliya maanta oo kale ay u baahan tahayna uu laga yaabo shirarkaas uu qabsanayo inay wax ugu jiraan asaga u qarsoon oo rabo dalka inuu dhibta kaga saaro waayahay sidaan la wada soconno mas-uuliyiinta dawladuna ay sheegaan waxay dabcan tillaabooyinka la qaada ka mid ah in shirkii London aad ogeyd ay madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexaba ay go'aan midaysan ku tageen dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in waxyaabaha ay qabteen ay ka mid tahay arrinta bixinta mushaaraadka shaqaalaha dawladda guud ahaan iyo xiriirka dibadda marka boqolkaasi cisho ma kaga filan tahay aad leedahay tillaabooyinkaasi madaxweynuhu sheegaya ay qaadeen wallahi saan horeyba u yiri Cabdullaahi ma 100 maalmood halbeeg dhab ah ma noqon karaan xukuumadii ka horeeyay 6 bilood ilaa sanad baan siin jirnay tan hadda waxaan 100 cisho bes ugu soo koobnaa waxaad moodaa inay si un cadaalad darro u yara noqonayso kastaba se markaad fiirisid ninkan markii la soo doortay ra'iisul wasaarihii uu xulay qolihii wasiirree la sameeyay hanka Soomaalidu ay ka qabtay meesha la fiirinayay waxoogaa baan moodaa in dadka hadda hoos u yara guuxayo oo baahidan waxay ka soo jeedaa wixii uu ballan qaaday laakiin tallaabooyin cadcad gudaha laga sameeyay markaad fiirisid xiriirka dibadda waxaad moodaa waxoogaa rajaa inay jirto hal arrin aan ka dhaho shirka London wax dan ah oo Soomaali maslaxadeed ugu jira ma jiraan waxaad moodaa in beesha caalamka ay heshiis ku tahay in xukuumad walba sanadka ugu horeeya laga khasaariyo meeshii ay u socotay iyo goolkeedii ay lahayd iyo hiigsigeediina lagu falaado ilaa Addis Ababa sanadkii 92 iyo 93 ilaa maantana waxaana loo diyaarinayay hay-ado yar oo loogu talagalay in isku dubaridka howlaha bani'aadanimada Soomaaliya ay ajaanibtu wax ku cunto mushaaraadkooda ay ku diyaarsadaan haddii Soomaaliya la rabo in dib u dhis dhab la geliyo horumarin dawladdu waa inay fakartaa inay qorshe Marshall Plan sidii kii Mareykanku Yurub uga saaray dagaalkii labada adduunka colaada dib u dhis dhab la taaban karan uu ku geliyo in annaga samaysan aan hormuud ka nahay annaga curinay lacagteennana ku bilowna kadibna saaxiibada ay Soomaaliya adduunka ku leedahay wax laga raadiyo kadib qaramada midoobay iyo midowga Afrika wixii la mid ah looga doono shir London loo aadaa marnana muhiim ahayn waana lagu khasaaray kuwa horaana ku fashilmay inuu asna aadamay ahayn muqdisho hadaan lagu qaban karin Djibouti in lagu qabtay ama bariga Afrikada bari meel kamida Ingiriis caana loogama fadhiyo inuu Soomaali siiyo marka maxay ahayd in madaxweynuhu xooga saaro muddadan 100 cisho adiga aragtidaada waxay ahayd inuu gogol qaran dhigo dalka Quraan loo akhriyo Ilaahay loo bariyo dadka dunta iyo labeenta Soomaalida ee siyaasadda fircoon kuwii hore fariistay murashaxiintii uu kursiga kaga guuleystay madaxweynayaashii ra'iisul wasaarayaashii ra'iisul baarlamaanadii dalka Soomaaliya intuu u yeero la tashi la geliyo in dalka meeshii la aadin lahaa loo tashado waxaad moodaa in intii guuleysatay ay xukunka isku koobtay dad badan banaanka la dhigay haddaan wax laga bedelin qaabka hadda loola tacaamulo siyaasiyiinta Soomaalidana waxaad moodaa rajo badan oo aan qabnay inay iska soo gabagaboobi doonto maran dheereen guud ahaan markaad eegto filashadaada muddada 6 bilood ee soo socota xukuumadana dabcan lagu qiimeyn doono qorshaheeda waxqabad guud ahaan la eegi doono xaaladda siday wax u socdaan ma isleedahay dabcan isbedel weyn ay la imaan kartaa dawladdan waxaan u maleynayaa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaanba xukuumadda federaalka hadda jirta inay fariimo culculus gaareen dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay ama si qarsoodi ah loogu tabiyo ama ha ka arkeenba warbaahinta Soomaalida iyo tan caalamkaba haddii dalkaas aanay dawladdu intay fariisato aanay la imaanin qorshe dib u dhis iyo horumarin oo la taaban karo dalka la geliyo oo amnigu uu koob ka yahay dastuurka 2 toddobaad iyo 3 toddobaad lagu soo koobo nadiifintiisa ay 2 ka tahay 3 ay ka tahay in ciidankiina loo dhiso 4 ay ka tahay in dib u heshiisiin dhaba dalka la geliyo dawladda iyo laamaheeda kala duwan dawladda iyo maamul goboleedyada dawladda iyo maamulka Hargeysa iyo wixii la mid ah waxaan moodaa rajo badan inaanay jiri karin rajo way jirtaa fariimana way gaareen adag dawladdu waxay u baahan tahay intay fariisato inay dib ugu noqoto qorsheeda ee rabta dalka inay ku dhaqdo maadaama culays badan hadda soo siyaada
aad buu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa Professor Ibrahim Faarax Bursaliid oo iigu warramayay telefoonka magaalada Nairobi. barnaamijka dabagalka wararka ayaad weli daawanaysaan. magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray maanta agaasimaha shaqaalaha bariga iyo bartamaha Afrika, waxaana uu kulan la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, iyadoona ay ugu muhiimsanaayeen arrimahaasi sidii kor loogu qaadin lahaa heerka xirfadeed ee shaqaalaha Soomaaliyeed. waxaa sidoo kale muhiimadda kale ay ahayd sida kulankooda dabcan warbaahintuba ay ka soo gudbiyeenba in uu jiro iskaashi la xiriira sidii loo sameyn lahaa qorshe midaysan oo ku aadan horumarinta shaqaalaha guud ee qaaradda Afrika. waxaana halkaasi hadal ka jeediyey ugu horeyn wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Saalax Axmed Jaamac. shaqo loogu abuuro lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah boqolkiiba 27 tirada guud ee ummadda Soomaaliyeed. waxaanu isla meel dhignay inaanu ka shaqeyno tallaabooyin cadcad oo aanu ku fulinayno barnaamijyo suurto gelinaya in la shaqaaleysiiyo dhalinyaro fara badan, in la abuuro jawi shaqo. dabcan sida aynu wada ogsoonahay, shaqo la abuuraya ma aha wax ay wasaaradda shaqada kaliya leedahay, waa iskaashi dhex maraya wasaarada kala duwan. wasaaradaha wax soo saarka leh sida wasaaradaha kalluumaysiga, khayraadka iyo xoolaha. aagaga kala duwan ee dhaqaalaha inaanu iska kaashano, wasaaraduna ay ciyaarto doorkii ay weligeed geli jirtay ahaa inay tayayso, abaabusho, isku dubarido, u fududayso sidii ay dadka Soomaaliyeed shaqo u heli lahaayeen, innaga oo ilaalinayna xuquuqda shaqaalaha. dabcan dal baynu nahay ka soo kabtay qaranjab iyo qalalaase, laakiin hadda waxaynu joognaa meeshii ay wasaaradaha Soomaaliyeed doorkooda ka soo bixi lahaayeen, siyaasadihii dejin lahaayeen. waxaanu si cad uga wada hadalnay mudane George in aanu iska kaashano oo ay naga caawiyaan sidii ay wasaaraddu u hirgelin lahayd siyaasad shaqo oo dalku u leeyahay iyo khaasatan istiraatiijiyad lagu shaqaalaysiinayo dhalinyarada Soomaaliyeed. wada hadal wanaagsan baan dhex maray, laakiin waxaanu rabnaa wada hadalkaasi inuu ficil isu bedelo. waxaanuna kala qaadanay waajibaad iyo waqti cayiman. waxaan dhawaana safar ugu tagi doonaa magaalada Geneva, halkaasoo shirweyne ka dhici doono dowladda. wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayuu kaasi ahaa. sidoo kale waxaa halkaasi hadal kooban ka jeediyey agaasimaha shaqaalaha ama ururka shaqaalaha ee bariga iyo bartamaha Afrika. And thank you for having us, ILO delegation from Addis Ababa. We are extremely grateful for the reception that we have received here in Mogadishu. We also want to thank the government of the federal government of Somalia for the commitment that they have demonstrated to work with us in areas that are very close to our mandate, i.e. the creation of employment opportunity as one of the surest ways of bringing about peace and development. We have had very frank and fruitful discussion. waxaa telefoonka magaalada Muqdisho ku jira agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Maxamed Cadde. Maxamed, faahfaahin intaa ka dheer oo ku aadan imaanshiyaha magaalada Muqdisho agaasimaha ururka shaqaalaha bariga iyo bartamaha Afrika iyo kulanka mas'uuliyiinta wasaaradda uu la qaatay ma ina la wadaagi kartaa? si wanaagsan. hay marka ugu horeyso raadiyaha iyo telefishinka Universal waa idin salaamaya. waana ku mahadsantihiin xiriirka aad ila soo sameyseen. shirka maanta ka dhacayna anigana goobjoog ayaan ka ahaa meeshaan fadhiyey. marka ninkan agaasimaha horta markiisa hore wuxuu agaasimo u yahay 5 wadan oo geeska Afrika ku yaala oo ay ka mid tahay Soomaaliya. xafiiska
soomaaliya u qaabilsan ururkaas shaqaalaha caalamkana wuxuu ku yaalaa hadeer magaalada Nairobi waxyaabihii laga wada hadlay ayaa waxa ugu muhiimsanaa oo ka mid ahaa in xafiiskaasi sida ugu xiisaha badan loo soo raro ka mid ahayd waxyaabihii la isku afkartay in wafdigaasi yimid wasaaradda yimaadaan imaanin oo halkaas lagula hadlo waxay muujinaysaa waxqabadka dawladda ama xukuumadda hadda jirta in ay macnaha tababar hore u qaaday oo dadkii ajaanibta loogu tagaayay meelihii maaragtay ciidiga ahaa ama dhexdeeda loogu tegi jiray ay xafiiska maxamed muhiimad intee leg ayay leedahay dabcan in xafiiskii la keeno muqdisho dabcan sidaad sheegtay xafiisku 5 wadan ayuu ka dhaxeeyaa waxay cadeynaysaa macnaha in dadka shisheeyaha ama ururada maaragtay ka jira in ilaa 1000 shaqaale ku dhow la doonayo in laga diro wasaaradaha kala duwan ee dawladda kuwaasi oo la sheegay inaanay si rasmi ah u gudan waajibaadkii shaqo isla markaana aanay si sax ah nidaamka shaqaalaha uga tirsaneen arrintaa ma jirtaa aniga kulli agaasimo ahaan wali arrintaas waxaan kala socdo ma jiraan waayahay muxuu yahay marka qorshaha guud ku aadan dabcan shaqaalaha qaar ee la sheego inay ku qoran yihiin wasaaradaha haddana aanay shaqada imaanin oo mushaaraadku iska qaataan iyagoo guryahooda joog way dhici kartaa wasaaradaha in uu maqnaadaa qof uu jiradaa qof wax kastaa dhici kara cilado way jiri karaan laakiin ilaa ay hadda telekoobka la sheegayo aniga kolley wasaaradda shaqada ahaan ma hayno weli aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane maxamed cadde oo telefoonka muqdisho igu warramayay maalmihii u dambeeyay taliska ciidamada xoogga dalka ayaa waday fulinta amar dhowaan uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya xilli uu booqday degmada Afgooye waxaana amarkaasi ahaa in si degdeg ah loo qaado jidgooyooyinka yaala deegaano ka mid ah gobolada dalka haba u badnaadeen gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe waxaana maanta la soo bandhigay ilaa 4 ruux oo la sheegay in ay jidgooyooyin u taalay deegaano ka mid ah gobolka gaar ahaan Shabeellaha Dhexe kuwaasi oo si toos ah gacantooda loo geliyay hay'adaha ama maxkamadaha ay arrimahaasi qusayso qaar ka mid ah saraakiishii arrimahaasi ku howlanaa ayaana warfidiyeenka la hadlay waxaan idin soo bandhigaynaa 4 maxaabiis aan ka soo qabanay degmada Warshiiq kuwaasoo ah kuwii dadka shacabka ee masaakiinta ee musaafurka ku dhawaateynaya wadooyinka ayagoo u geysanaya dhac dil kufsi sidaad arkaysaan raggan ugu horeeyo waa raggii shacabka musaafurka ee maro wadooyinkaasi u kala goosha degmooyinka Warshiiq Cadalle Raagaceele Runurgood ilaa Beledweyne Xarar Dheere way yaqaaniin nimanka dadku dhibi jira waaye agagaarka la helow ragga kaleeta ayaga dadku waxay ku dhibi jireen soona maaxay inta u dhaxaysa ceel macaan iyo Warshiiq anagoo qaadanayno amarka taliyaheena nimankan al-shabaab iyo midka isbaarada ee tuuga ee jidka ku jiro isku mid yihiin ina anagana difaaci hore ta joogno on shabaab ka ilaalino ayagana gadaashayna ay shacabka ku dhibaan waxaan aqbalayna ma ahan anigoo ka faa'iideysanayo fursadan waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo aabayaasha kuwa kaleeta ee isku dayi doon inay jidka soo galaan inaan sida al-shabaab ula dagaalami doono marka raggan ilaahay ayaa noo fududeeyay inaan soo qabano ilaahay ayaan ugu mahad celinaynaa waa maasantihiin
maanta ay taariikhdu tahay 21 bishii shanaad 2017 inoo ah in burcadii ummadda Soomaaliyeed ee qaato dariiqeed oo jid ku libay wax ku dilay boobay cid walba hadii looga dacwooday iyo cid walba nabadoonkoodii sheego qaraabo kasta loo sheegay loo taag waay ummaddan hana laga qabto annaguna mas'uuliyaddan ay tahay labada shabeelle oo cadowa ama qurcada aan ka sifayno annagoo fulinayna haddaba arrintaas ayada amarkii taliyaha xooga iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka soo baxay oo ahaa qofkii jidgooye sameeyo oo ummaddan dhibaha la soo qabto hadii la soo qabaabana lagu dilo annagoo arrintaas markaa ka doodayna maxkamaddii waxaan u taagay maxkamaddii waxaan ka soo qornay warqad ah qofkii lagu dilo inauna mataqaana mag lahayn oo hadhow qabiilo una dhihi karin waxa san laga dilay annagoo marka dhinac walba u raacnay waana ku daynay wax walba ku daynay waxaan amar ku siinay ciidamadeena difaac hore ugu jira qaasatan guutada afaraad ururkeeda 28aad iyo guutada labaad ururka 12aad kamida ayaan waxaan ku daadinaa ciidamo dariiqaas ayaga si ay u ugaarsadaan nimankaas ayaga ah laba kamida waxa la soo qabtay 4 habeen ka hor ayadoo markaas la raadinayo raggii mutaqaana maxooha mukhassisiinta ahaa oo dhibka badnaa oo waxaan oo dhan ka dambeeyay la qaban waayay oo hebel iyo hebel loo yaqaano umadiina ay maanta ka muujisay farxad iyo rayn oo hebel iyo hebel ba hadaan naga qabateen guul way ba gaarteen umadii xataa shabeellada dhexe waad warsan kartaan iyo cid walba waad weydiin kartaan arrintaas waxay ka qabaan dadkaas ayaga ilaahay baa noo fududeeyay inaan dadkii ayaga labadii qof oo la raadinayo oo ugu dhibka badneed inaan soo qabano maanta ee hortiina taagan yihiin qoryihii lagu soo qabtana aad arkaysaan ayagiina masawirkoodii waxoodii ay meesha taagan yihiin sidaa daraadeed annagoo fulinayna amarkaas madaxweynaha iyo taliyayaasheena ummadeena Soomaaliyeed oo u dhaaranay oo kitaabka ugu marnay inaan shabaab iyo cadow mid dibadda mid gudaha iyo mid burcadaba aan ka sifayno waxa ballan naga ah inaan cirib jarno kuwa ugu dambeeyana inaan soo qaban kuwaan haddeer ayagaana waa inta la soo qabto loo masawira lama rabo nimankan waxaan rabnaa maxkamadan hadda adinkoo arkaysaan aan u gudbinayna maxkamadan dirtu u gudbinaynaa warqadihii iyo marqaatiyaasha wixii waa wadnaa oo maaragtay lagu soo qabtay oo dadkii goobjoog ah ay ku cadeynayeen in dambiilayaashiyaas yihiin maxkamadana waxaan ka codsanayaa hortiina uga codsanayaa inaan nimankaas inta odayaal iyo nabadoonnada u tagaan inaan la soo deeynin nimankaas in waajibka ay leedahay maxkamadda ka fuliso haddii nimankaasi baha lagu soo fuliyo waxa imaan doonta in mid dambana aan la soo qaban doonin sababtaas oo kii la soo qabtay hadii la deynaa inaan waxba soconaynin annagana waxayna ay noqonayaan hal bacaad lagu lisay marka annagoo gudanaya waajibaadkaas asiga ah ayaan hortiina u soo bandhigaynaa arrintaas ayada waxay kuwaasi ahaayeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo ka hadlayay kooxo jidgooyooyin dhigtay deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe oo maanta loo gudbiyay dhinaca maxkamadda ciidamada ee arrimahaasi ku shaqada leh guud ahaan barnaamijkii dabagalka wararka caawa inta ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan u mahadcelinayaa Cabdirasaaq Maxamuud iyo Maxamuud Mukhtaar oo dhinaca farsamada gacan iga siiyay tan intaan barnaamijka mid lamid ah kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo